السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبتنا كحيران جنرال كنا لما أنتي سودوا هذا صاحب بيال عاوية أبديدي وجودن بي أما قطب مركا آدو حيس بدن أو أين ربنا إنا نسوق هذا إنه إياه قطب كنا أينو عاو كهذا لينو أما برنامج كان أينو وضعنا إنا نكهذا إنه حقيقي يسقاب كي أي مالنتي شلي قال كي كدعي هاي بري سببت أي وحود عين iyo raggii odayaasha ahaa ama isimadii ka socday beeshii khaatume SC ee maalintii shalay iyagu xagga aaday sababtay u aadeenna maxay ay tahay waxaan kaloo rabnaa inaynu soo qaadano nin odaya laftigiisu oo markaa isaguna goobjoog meesha ahaa garaadadii ama isimadii markaas beeshii khaatume statena fariin u wada arrinkii meesha dhacayna ka hadlaya haddaba intaynaan qodobadeena u gelin waxa aynu soo qaadanaa halkaas ka tusaynaa ninkan maanta ayuu dhintay waa ninkaad sawirkiisa halkaa uga jeedaan waa raggii shalay ku dhaawacmay dagaalka waxa aanu ka soo jeedaa waa beeshii habar jeclo magaciisana markaas waxa uu yahay waa cabdi xukun cali cabdi oo ka mid ahaa dhalinyaradii beeshii habar jeclo ee maalintii shalay toole weerarka soo qaaday oo goor dhaweyd ku geeriyooday dhaawac ka soo gaaray dagaalkii shalay ka dhacay haaye bari tirada beesha habar jeclo dagaalkaasi kaga dhimatay ayaa sii kordhaysa oo dhaawac ahaan markaas u geeriyooday ayagoo dhaawac ahaa oo marka maalintii shalay kuwo badan oo dhaawacmay ayaa gadaal ka soo baxay xalay ugu dambeysay markii aynu ka hadlaynay barnaamijkana waxa aynu ku sheegnay xaaladda horta inaysan dhammayn oo ilaa iyo habeen dambe ama waqtiyada kasii dambeeyaba hadalkeedu uu sii socon doono ama sheekadeedu ay arrinkan markaas sii soconayso dhaawac badan ayaa marka jira oo beeshii habar jeclo ah oo ciidamadii shalay markaas dhaawacu soo gaaray oo marka qaar ay gadaal ka dhinteen dhaawacii soo gaaray dartiisa ninkan marka hadda sawirkiisa aynu halkaa uga jeednaa waa ka mid dhinaca kale deegaankii shalay lagu dagaalamay ayaa maanta degan mana jiraan wax dagaal ah oo ka dhacay marka laga reebo hal ruux oo beesha habar jeclo iska dishay maanta magaalada haaye bari hal case oo dhimasho ayaa marka laga soo sheegay haaye bari oo meesha beesha habar jeclo deganeyd halkaas ninna oo maanta dagaal ku dhacay ama ay xabada ku dhacday kaasna waa mid iyagu habar jeclo gudahoodu ay iska dileen oo shalay kaliya kuma ekaba dagaalkan ay odayaasha gaadmada ku soo qaadeen balse ayaantanna ba beesha habar jeclo dil ay heega wado oo meelo badan ka dhacay oo iyagu ay isdilayeen ayaa socdayba sidoo kale waxaa isaguna ku geeriyooday maalintii shalay toole dagaalka sarkaalkii watay ciidankii weerarka soo qaaday ee beeshii habar jeclo sarkaalkan magaciisa waa cali cabdi khalaf waana hadda ninkaas halkaa uga jeedaan sawirkiisa ee halkaa inooga muuqda waa sarkaalkii isagu weerarka gaadmada ah maalintii shalay soo qaaday isagii weerarka watay ayaana ku dhintay nin kaloo oday ah oo caaqil ah isaguna waa ku dhintay oo beesha ka soo jeeda allah ya raxma haddaba dagaalkan iyo gaadmadu maxay ku dhacday sababtuna maxay ahayd dagaalkan marka haddii aynu sheekadiisa galno hawshu waxa ay ka bilaabmatay wiil ka soo jeeda beeshii dhulbahante oo dhalinyaro ah ayaa waxa dhacday in gabar markaa ka soo jeeda iyaduna beeshii habar jeclo in ay arrin meeshii ay dhacday wiilkaasna la sheegay inuu gabadhaas dab saaray arrintii ayaa marka la isku qabsaday oo gar iyo waxay noqotay in markaa la isu soo fariisto gartii markii la isku dhigtay odayaashii beeshii dhulbahante ka socday gartoodii waa ay qaateen waxaanay u soo bandhigeen xaal iyo xumayn iyo raaligelin inay la kulmaan odayaashii beeshii habar jeclo arrinkii sidaas ay odayaashii ku wada hadleen waxaana lagu ballamay meeshan markaa haaye bari hadda videoga halkaas inooga muuqda waa u jeedaan waa dhulkaas waana dhinacan xadka Ethiopia ودول أد في عن كل وديجان أي دت كود الديجان سيدنا ملاينا يو أدوجو أرنكي مركي ودعي أضياشن أي صوب بحين باشي للبهانتك السعودة يعقل لنا يسمداني وباشي هبرت على أضياش ودي اللي ورجلي أيا واحد عادي إن قف قدود ضاعت السعودة مرنا بروح اللعبة يا مجران رسم ماشي اللجوي أيا لو طلع لي وأضياشي باشي هبرت على كسعودي ayaa go'aan waxay ku qaateen in ay markaas Muuse Biixi iyo dawladoodii iyo ina kaahin iyo ay arrinkii la socodsiiyaan ka bacd marka maxay noqotay in la dhaho waaba arrin fiican
ciidan loo soo diyaariyo ninkan sarkaalka hadda aynu arkaynay lagu dilay oo shalaytoona meeshaas jab badan uu ka raacay marka aanu shirka tagno oo aanu odayaasha wada fariisanno waan isku gacan saaraynaa idinkuna markaa dabka saara odayaashan dhulbahante feejignaantooda waa ay qabeen oo kulley mar walba dagaal baa socda feejignaan in ay jirto waa wax muhiim ah ama ciidan uu markaa kula socdo dhowr dhalinyaro ayaa la socotay way feejignaayeen balse waxaaba qaladaba imaanshaha ay imaadeen taas ayaa qalada weyn usoo laaban doonaa markii ay meesha yimaadeen odayaashii beeshii habar jeclo ay la kulmeen ee la wada hadlay ee arrinkii la rabo markaas inta la gorfeeyo laga heshiiyo oo xaal iyo xumaynba la bixiyo ileen gabadh baa la dhahay waxbaa soo gaaray odayaashii habar jeclo niman markii hore ee la wada hadlayna arrinka raalli ka noqday oo soo dhoweeyey ayay ahaayeen ilaan iyaga ayaa garta soo dhigtay oo sheegay in dhibaatadaas dhacday waana laga aqbalay in raalligelin laga bixiyo xaalna laga bixiyo iyo wixii markaa lagu xaqaayay balse laqdabo ayay hoosta ka wateen oo inay dad dilaan oo markaa waxay u socdeen inay odayaashan dilaan oo meesha ay ku baabi'iyaan raalli kamaysan ahayn arrinkii u socdeenoo khiyaano ayaa meesha ku jirtay balse nimankan odayaashan dhulbahante iyo caqaladan socday allow sahal ayay ka ahayd waxaan dhanba iyo khiyaanadan war umaysanayn markay meeshii yimaadeen odayaashii habar jeclo kiiskii ayay iska waaleen arrinkii meel kale ayay geeyeen iyo waxaan lagu soo wada hadlinbo iyo qaabkii markii hore lagu soo heshiiyey iyo in meesha lagu wada fadhiisto arrin ka duwan ayay la yimaadeen waa ayna kaceen oo waa ay baxeen markii ay baxeen odayaashii dhulbahantana iyo caqiladii raggii socday waa ay soo baxeen iyaguna markay damceen inay baxaan oo jidkoodii ay qabsadaan ayaa xabaddii lala kulansiiyey marka xabadda lala kulansiiyey waa la isxabadeeyey adugu wixii dhimanayay way dhinteen nimankii beeshii habar jeclana dee sidii caadadahayd way ordeen oo dhabarka ay jeediyeen wixii hub laga reebanaya iyo wixii dhaawac iyo maxaabiis laga qabtay iyo wixii markaa ay ka qaadan karaayeen oo ay ka carareen waa ay qaateen ciidamo kale oo markaa iyaguna gaasdhagoola ah ama raggii macawisleyda ee areada joogay oo beeshii dhulbaantii markay maqleen iyaguna waa yimaadeen back up ay u noqdeen adigu meeshii waa ay ka xasileen nimankiina waa ay ka ordeen balse khiyaanada odayaashan beesha habar jeclo ee garta u yimid ayaa waday oo waxa ay qiyaamayeen odayaashan kale beeshii dhulbahanta marka dhowr jeer ayaa qaladaadyo noocaasi marka dhacday oo odayaashii beeshii dhulbahante ama garaadaha ahaadaan ama caaqilo ama isinno noocay rabaan ha ahaadaan muhiimadda maaha qofku wuxuu yahay inaynu ogaano balse odayaashan inta hadal been ah loo sheego kadibna baxaya oo dhibaato noocaasi ay ku soo dhacayso sow ma wanaagsana wixii inta ay ogaadaan ay kana digtoonaadaan ilaan ayaan dhexdaasa waa dhowr bilood ka hor bayna ogeyn tuulo noocaasa oo lagu gaaday oo garaad jaamaca garaad ismaaciil iyo rag waaweyne ay meesha maraayeen oo garaadadii ay ku fakadeen dirqi iyo tuxum maalintaas laftigeeda lugooyadan iyo dhibaatadan ayaa ka dambeeyey wax beeshii habar jeclo ayaa ka dambaysay warkoodna wuu cad yahay oo dhulbahantoo dagaal ayaanu idinka rabnaa ayay dhaheen nabadda waxa rabaa waa idinka ee barracdan iyo bacbacdan joojiya isu keenkeena marka odayaashii dhulbahante iyo isimadoodii iyo garaadadoodii daacadnimadan marka mar walba inta lagu khiyaamo ay aadayaan oo ilaahay ka soo badbaadinaya lagu dab saarayo ma caqliga ayay laayihiin mise way sirxan yihiin oo waa la taagay ilaa nin aad u jeedid inuu ku dilayo oo ugu soo talagalay oo ciidan xitaa soo kaxaystay oo muuse biixi ciidamo u soo diray oo laga dambeeyo inay kaahiniyo kulli ay ku wada lug leeyihiin adiguna aadan ciidamo SSC soo kaxaysan dhowr nin oo adiga familkaaga oo ku ilaalinaya markaas ama rag iska gasdhagool oo meesha tuulada joogay ama macawisley areadaas markaa ka dhow ay kuu hiiliyeen maalin walba in ay naftaada ku gasho halis ama odayaashii iyo isimadii ay naftooda halis ku gasho soo doqonnimo maaha odayaashii maxaa waalay inay wax maqlaanna maxaa u diiday amuurtan idinku eega guryihiinna maad iska joogtaan ilaan maalin walba dhib intaad idinku lugihiinna ku doonataan oo haddana dirqi aad ku soo baxsataan oo naftiina la badbaadiyo dee mid la aqbalayo oo meeshii taalla maaha daacadnimadan idinkoo u jeeda in la idin dilaya aad meesha ku aadaysaan meesha ay ka timid ayaan la yaabanahay ilaa raggii waad ishaysaanbo way idiin caddeeyeen walaa salaadiin walaa odayaal beeshii habar jeclo toos ayay wax idinku sheegeen daba dagaalada markii ay dhaceen oo la isdab saaray ayaa haddana waxaa la keenay sheeko ah
dagaalka shalay meeshaas ka dhacay beeshii ogaadeen ayaa soo gashay oo beeshii ogaadeen sidee ayay ku soo gashay ciidamadii kililka shanaad ee beeshii ogaadeen ayaa dagaalka ku jiray ayagaana odayaashii dhulbahante ayaga ayaa badbaadiyey oo dagaalka way nugula soo goobteen dagaalka ay ka soo qayb galeen videoga aan isla eegno codkan aan isla dhegeysanno iyo qaabka marka loo sheegay inay beeshii ogaadeen dagaalka soo gashay anigu waxa la dhowranayaa la yaabanahay waxa la dhowranayo ayaa la yaabanahay saakaba maabuuhood la galayo laascaroodda taaganay isaga kaa dhigayaan haddana dowlad deegaankii baa kula dagaalamaya haddana dhulbahantaa la isaga kaa dhigay eeg caqligeena inaqiimanka jooga caqligoodu ma shaqeeyo hadday dhiig leeyihiin garxad iskana dhalay iyaa galbeedka degan ay soo dhex mari lahaayeen se sidee walaalkii ugu gudbi karaa ficil ma laha inaad yiri naga daawaxa mana inaad dhaqan sida isaacada kale in laynaga dhigo dhiigga nooc kale dhiiggeenaba lanaga dhigo wallaahi oo dadkaa bildaa dhiigaa lamid noqono iyagu ma ka dhaqdhaqaaqaya cid isaaq kaloo dhaqdhaqaaqaya ma jirto dowladdu waa taagan tahay isaaqi kale wada taagan yihiin iyaguna marka maxay taagan yihiin dadka meeshaan isugu yimid ee ku wada hadlaya waa heego waa beeshii habar jeclo oo nin caqli ku toosiye oo runta u sheegaaba uusan joogin meeshii dadkoodii oo markaa isu yimid weeye dowladdii ayaa xitaa naga maqan ayay aaminsayin dowladdu waxaa dagaalkan khiyaanada awaday iyo dadkan heshiiska meesha ka wada in lasoo weeraro soo dowladdii ma ahayn waxa la adeegsanayey ee odayaashoodii inta ay been sheegeen shirqoolka sameeyey soo beeshii habar jecla maaha bal wanaagga marka ay raadinayaan ay keligood isku tilmaamayaan maxay tahay ilaan iyagii baaba dhibkan wada oo dadkii xitaa odayaashoodii baa xitaa khiyaano wada oo khiyaanadaa sameeyey shacabkoodiina taasay aaminsan yihiin markii dhowr nin oo meeshii joogay ciidankii weerarka soo qaaday ay inta iska baaciyeen la dagaalameen ilfaha u qaadeen oo ay yaaceen nimankii habar jeclay meesha ordaayay oo macal sarkaalkoodii oo aynu aragnay laga dilay ayaa ay social mediana saa ku sheekaynayaan soomaali ayaa weerar nagu soo qaday ay meesha ku leeyihiin kililkii shanaad ciidankii joogay ayaa dhulbahante iska dhigay ayay ku leeyihiin yacni ma africa oo dhan baa marka habar jeclo ay ku soo weerartay khiyaanada iyo dhibaatada idinku aad wadeen keliya ayuunbu ilaahay idinla gediyey wax kale oo meeshii ka dhacay maysan jirin social mediana waxaas ay marka la wareegayaan khiyaanada shalay waxa sameeyeyna waa iyaga iyo odayaashoodii idinku ibtiladaas eega haddaba waxaan rabnaa inaynu isla aragno nin isaguna qalasa oo beeshii SSC ka soo jeeda oo weliba gaar ahaan markaa la hadlaya odayaasha caaqilada isimada iyo garaadadaba odayaashii beeshii dhulbahante iyagoon waxba hubsan markaa iska dhaqaaqaya oo aaminaadoodu ay aaminaad dhaaftay meeshan ilaa odayaashii ay xitaa khiyaanada iyo lugooyada ay wadaan iyo in ay dadka siriq soo geliyaan ayaa uu kala hadlayaa odayaashii beeshii dhulbahante ama caaqil ha ahaadaan ama isimo ama garaado adigu isku soo wada duub sida fudud ee ay wax ku aaminayaan oo maalin walba naftoodu halista u gelayso ayaa uu kala hadlayaa iyo qaabkii marka ay wax u dhaceenna waa uu ka taataabanaya hadallo bal aynu isla aragno halkan waxaan rabaa inaan ka hadlo dagaal ka dhacay aagga haye bari dagaalkaasi siduu ku biloobmay waa loog yahay dhagarta ciddii dhigtay waa loog yahay rag odayaal ah oo meel jooga oo waxa weeyaan rag kale la xaajoonaya ayaa maxamed kaahi wuxuu u soo diray ciidan u soo diray nasi wanaag raggii qaasida ahaa baa ciidankii helay oo dabada kaga dhacay laakiin qorshaha maxamed kaahin doonayey iyo qorshaha ay habar jecla doonaysay muu ahayn in la bacsaday in laga adkaadee waxay ahayd inay odayaashaas ay iyagu u yeedheen oo la xaajoonayay inay meesha ku laayaan bay ahayd qorshuu saas oo ahaa qorshaha hadda waynu fahnay soo maahan maxamed kaahin iyo muuse biixi iyo kulli arrinkan way wada ogaayeen odayaashii beeshii habar jeclo ayaana la qaybsatay arrinka kabacdi odayaashii ka socday beeshii dhulbahante waa lala heshiiyey taleefon baa lagula wada hadlay waa la is arkay waxaa lagu ballamay in arrinkaas marka lagu kala garbaxayo meeshaa lagu qabto kabacdi odayaashii maxaa lagu yidhi idinku noo yimaada oo halkan kaalaya odayaashii marka
beeshii dhulbahante yacni mar walba waxaa ka muuqata daacadnimo wax la dhaho ay horta ku dhex baktiday oo qofkii la hadlaba waxay u malaynayaan qof daacad ah oo sidoodii oo kale ah ama hadalkaa ay ku wada hadleen ay raggu markaa ku wada dhaqmayaan oo sidaa lagu kala baxayo ma aha meeshan siriq badan baa taalla iyo lugooyo badan oo qof walbaba uu rabo inuu gaadmo wax ku dilo ninkii haddii uusan toos iskaga kaa celin karayn markaas oo ay noqoto mar walba inuu kaa ordaayo dantu markaa waxay keenaysaa ama dhuumasho ama gaadmo ama qaab walba oo markaa uu kugu dili karo inuu sameeyo waana marka tan la wada caddeeyey qorshuu mid dhisan inuu markaa ahaa odayaashana la rabay in marka meesha lagu baabi'iyo maxaa tala ah marka in odayaashii ay wax maqlaan taladiina ay mid la wada leeyahay oo go'aankeeda iyo meesha la qabanayo la wada qaybsanaya inay noqoto oo meeshii khatar ka imaanaysana la ogaanayo haddii markaa la leeyahay waa lagu qasban yahayna ciidama ay garab galaan markaas ilaan maalin walba inay naftooda halis gasho wax la qaadan kara maaha waxaan rabaa inaan beesha dhulbaanta fariin u diro beesha dhulbaanta waxaan leeyahay ama reer SSC waxaan leeyahay ama Ethiopia jooga ama Sanaag jooga ama Sool jooga waxaan leeyahay dadku heshiis maaha dagaalaha dhacay maxaabiis baynu haysanaa isaaq waa la laayay hubkoodii baa laga qaaday dadkii noocaa lagu sameeyey sidaa loo xasuuqay ee loo baabiiyey oo raggoodii la haysto oo saraakiishoodii la haysto inaad maalin walba aad erga u dirtaan oo aad hor fadhiisataan waxa weeyaan waa damir xumo weeyaan wixii dhacay waa dhaceen caadasha dhintay naxariis janna allah ka waraabiyaan leeyahay waxaan rabaa beesha dhulbaanta inaan u sheego ganacsigaa ka socda iyo socodka ka socda magaalada Ceergabo iyo Boosaaso ha la soo xidho ha la joojiyo isdhexgalka ha la joojiyo aadista isaaq la aadayo ama barjac la aadayo weli beesha barjac la aadayo ha la joojiyo ganacsiga gobolka Sanaag magaalada Ceergabo iyo Boosaaso isaaq waa isaga kala soconayaan gabadhaan baa la soo jiro qalaskani arrinka uu sheegayo waa wax run ah dadku waa dad ehel iyo ways dhaleen oo waa sax waa la wada degan yahay waa wiil iyo abti waa la wada yahay laakiinse beeshii dhulbahante iyo beeshii habar jeclo dagaal xun ayaa dhex maray oo nabadimo taalla markaa meesha sidee marka lagu kala badbaadaya qof aad macaal maxaabiistiisii oo ilaa iyo 400 ka badan aad ka haysid inuu marka mar walba dhibaato ku geysanayo uu rabo soo mid cad maaha ayaa dhowid bayn ogeyn laba nin naaleeye axmed ay dileen ka hor laba nin oo kale ay dileen odayaal garaada ah oo ay ku soo weerareen meel ayagoo ku shiraaya oo aan laga warhayn oo markii dambe niman amarka ilaahay ka dhow oo qalasiintii ay soo yaaceen oo ay meeshii ka badbaadiyeen marka fudaydkan badan iyo daacadnimadan in la joojiyo weeye haddii dadku ay heshiis rabaan oo ay heshiis u daacad u yihiin waa wax wanaagsan la qaata balse heshiis aan daacad laga ahayn oo la rabo in kolba oday inta been ay soo sheegaan oo dhahaan heshiis iyo waxaas khiyaano ah kadibna odayaashaas marka ay meesha aadaan ay rabaan inay ku laayaan ama ay ku qabtaan dee waxaad ku ogolaataan meeshii ma taalo farintana ninkan qalaskaa farintiisa waxay ku socotaa waa garaadadii caaqiladii isimadii beeshii dhulbahante weliba khaasatan oo uu leeyahay si fiican u dhegaysta oo kale waxa weeyaan ganacsiga buuhoodle iyo galbeedka buuhoodle ka dhaxeeya isaaq iyo dhulbahante ka dhaxeeya isagana ha la joojiyo isdhexgalka ha la joojiyo aaminaada la iska aadaya ha la joojiyo dhulbahante saasaan leeyahay waxa weeyaan habar jecla waxaan leeyahay maxamed kaahin adeer xarigii aad xidhay adusla kaa rogay waxa weeyaan raggaagii baad ku wey annaga waxba nama gaadhin odayaasheedina waa difaacanay raggii aad soo dirtana isku waraysta aakhiro macaltaliyahoodii ninkii ugu sarreeyey sarkaalka ah aakhiro isku waraysta hadalka waxaa ka baxayaa dhulbaante waxaan leeyahay war meelaad joogtaanba waa khalad maalin walba inaad habar jeclo hor fadhiisataan oo aad ganacsi u doonataan ama aad wada hadalka ugu tagtaan raggaad raggooda haysaan oo 400 oo maxaabiista ka haysaan 2500 ka disheen 180 gaarootiin ka qabsteen waa maxay sababta maalin walba aad u laalaabanaysaan oo hadalka uu soo jeediyey marka waa mid gar ah oo meeshii yaalla wixii meeshii ka dhacay iyo qaabkii marka la isku siray ee odayaashaas la rabay inta la soo shirqoolay in meesha lagu laayo oo ay ku baaba'aan waa wax cad oo maanta qofnaba kama qarsoona waa la wada ogyahay maamulkii marka firdhiye arrinkan waa inuu isaguna soo dhex galaa garaadadii ugu waaweynaa beeshii dhulbahantow iyaguna waa inay arrinkan wax ka qabtaan
iyo fudaydkan maalin walba inta odayaal lala hadlo la leeyahay meel hebel noogu imaada oo lagu shirqoolayo dee go'aan ka gaara dadku waa way heshiiyaan walaalo waa la wada yahay waa la wada dhashay balse hadda waa waqti colaadeed in oday idinka mida ama hal askariyo idinka mida ay dilaan oo ay shirqoolaanna wax walba ayay ugu weyn tahay marka sida aad wax u wadaan mid suuragala ma ahan qalaskan iyo dadka fariintoodna kulligood waa wada sidaa ma soo wada qaadan karna hadda muhiimadda ninkan oo marka isaguna meesha ka hadlayay ayaynu kusoo qaadanay bal odayaashii marka beeshii dhulbahante qofkii xitaa gar idin haysta oo idin imaanaya idinkaa damaanad qaadi kara oo mas-uuliyaddeedii qaadi kara xitaa hadday ciidamo wataan aan la eegayni dee idinku dhulkiina ku ballansada markaa iyo meel nabad idin ah programkan haddaba videogan kuma dheeraanayno intan ayaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo xaaladda ay wax u dhaceen iyo qaabka ay ka bilaabmeen iyo arrinka markaa la isugu yimid ee odayaashu ay ka wada hadlayeenna waa labadaa dhallinyarada ah ee wiilkaa dhulbahante iyo gabadha habar jecla ayay ahayd oo khaladkii dhacay iyo dhibaatadii meesha ka dhacday in laga wada xaalo oo laga wada heshiiyo ayay ahayd muhiimaddu oo weliba beeshii habar jeclo iyaga markaas inta loo tegay xaal iyo xaalmarin iyo raaligelin iyo xaqiiba markaas raalli looga wada ahaa iyaguna ay raalli ka ahaayeen markii ay odayaashii yimaadeenna la isgadiyey oo meeshuba ay ahayd wax la khiyaamo odayaasha lagu keenay oo la rabo in lagu laayo ay ahayd wayna u jeednaa seen u dhacnay balse waxaan rajaynayaa wixii hadda ka dambeeya iyadoon kuwaasna lagu xadgudbin idinkana laydinku xadgudbin in aad nafsadiinna ka taxadartaan videogan halkan ayaan kusoo gabagabaynaya intaynu isugu imaan doono video dambe iyo wixii cusub ee soo kordha insha allah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu